مالون أكسن أدبن دين سلامية إن شلتو حقي ريودي على يركي أبيه ولالكي يرانكي أبيه إيو إلهي نحرستي جناك ورابيو أذركي إنتو جري نولشي سلبا بإيه إن isagoo dhalinyara ayaa on 20 gaadhin ayaa wuxuu galay dhalinyartii wuxuu ahaa dhargigu xidhay Ethiopia markii la isxidho xilligii dhargiga dadka aad baa loo ciqaabi jiray basbaas ayaa intaa gargara lagu rido sidii fooxa ama uunsiga loogu shidi jiray qolal bilaa daaqado bilaa albaabo bilaa foomala idhoo xiran dadkayna way dhiman jireen ina way waalan jireen ina ilaahay baa maalin kale u dhigan jiray adeerkay cimrigiisa intuu jiray noloshiisa wuxuu ku dhamaystay xabsi iyo xanuun isagoo xanuunsan buu jeelka ka soo baxay cimrigiisana wuxuu ku dhamaystay xanuunkii jugtii gaadhay wixii la gaarsiiyey waa la ciqaabi jiray waa la garaaci jiray waa wixii jug gaadhay marmarna maskixiin buuba una normal ahaan jiray oo basbaaskaas baa waa damage gaarsiisay iyadoo jugtii madaxa laga garaacay iyadoo saa tahay nin ehlu diina tukada salaada xafida waalidiintiisa ka ducaystay ilaahay ku xidhan buu ahaa weligiina ma guursan 19 waagaan tegay waddanka ayaan gabadh u doonnay gabadhii baanu dhisnayoo ilaahay wuxuu siiyey 2 ilmood oo yaryar oo midna hadda mala 5 galayo midnaas 2 sano meelaha u dhamaanay ilaahay labadaaba ifka kaga reebay adeeraday waxay ahaayeen 14 nin 14 adeer baan lahaa 14 koodaas caawa 3 baa nool marka aabahay lagu daro aabahay baa 14 ku haystaa furla 13 adeer baan lahaa 13 kayga adeer caawa 3 baa nool 10kii iyo aabahayna way dhinteen alla yaa raxma in la dilay iyo in ilaahay xaqiisa helay bay noqoyahay in la dilay baa ku jiray qaar gaadma lagu dilay iyagoo hurdo la dilay baa ku jiray yacni dhimasho nooc walba way soo marnay adeerkaysi gaara way ii taabtay aabahay markuu geeriyooday yaraanka iyagu 12 sano jiray inta baby dil jirjiro kale buu walaalkayga inoogu yar jiray walaalahay isaga koriyay yaalkayga yar isaga soo koriyay weligiis yani ilmo yar hadduu kula joogo ambaad maalin unbaad yara qaldami yara dharbaaxi amba kelmad yara kulul unbaad odhan yani qofka yara ku mutay maalmo kula jooga amba sanad kula jooga marbay kelmad kaa soo bixi bini aadan baad tahay adeeraday guud ahaan daraad baan ka hadlaynay markuu adeera dhimanayo qof ay maalin qura canaanteen male iska dhaf qolay wax qof u dhinteen ku dhifteen ilaaha xaq lagu caabudaan ku dhaaranaya dhiig iyo nafti igeliyay qof uu maalin canaantay baa la waayay oo yiraahdo adeer maalin buu canaantay kuwa abtiga u yahay ku adeerku yahay warta nin sidaa buu ahaa ilaahay naxariisto jannada ka waraabiyo
حايقة كاني dad baa waxay ku dhaheen allah adeerkaabaa dhintay waxaan u malaynay sidii aabbahaa dhintoo kale baad u oyday waa marka lagu leeyahay doqoni habaryarteed hooyadeed ma moodo doqoni adeerkeed aabaheed ma moodo waladka iyo waalidku wanaagga way kala shaqaystaan yes waalidku hayaanadeeyo oo kula diriro oo ku canaanto oo kugu dhib badan hadduu dee waalidkaaga la dhashay of course waxaad oranaysaa allah u naxariisto and believe me aniguba qaar sidaa waan leehay qaar ii waalida way jiraan oo maanta nool oo berita hadday iga horeeyaan aan odhan doona allah u raxmado way jiraan idinkulama yaabayo laakiin kan maaha aniga dhinaca adeeraday niman ilaahay subxaanahu watacaala inta dhimatay inaan u naxariisto mid unbaa ahaa aasiyaanka reer jigjigo oon arki jirin malaa 3 jeer baan arkay noloshaydaba jigjigadii hore buu ahaa kuwa kale oo dhan dhammaantood waan wada garanayaa markaan yaraa maalin qura haatay ma xasuusto mid ilaa hadal yar kulul yidhi ma xasuusto كلمة يرو أذك مديري والله ما حسوست دمانتو صدق ذا نول يو كوي توان قاباي نمرك لو قدر دينتي سكدر تصدق بي هاين مرك والد وناكسني مركو كدلو مالنتو دينتو of course عمل هذا استبدليسا هذا عيد مذوبات باكو قدعية أفيل أبي بعدنتي يس أبي بوها adeerkii aabahay la dhashay booska aabahay noo galay noo buuxiyey buu ah so gabadha aabaheed shalay geeriyooday baan ahaa ilaahay naxariista jannaa ka waraabiya iigu soo duceeya ilaahay inuu qabriga u waasiceeyo wax walba waan sameeyo waddankeena dhakhaatiir ma joogto qalab ma yaalo siiba Somaliland siiba awdal siiba buura waxa ma jira iigu soo duceeya ilaahay inuu qabriga u nuuriyo iigu soo duceeya ilaahay subxaanahu watacaala kuwa maanta barsaqay naga soo daawanaya inuu ku jiro ilaahay taasaan uga baraya marka haysdiin aabaha maahee waa adeerka haddaad adeer wanaagsan haysato halkii aabaha kuugu jira ka ducayso because you don't know adduunkan inta la isa sii arki doono. Assalaamu calaykum.